dadku xisbiyay kala raaceen oo codeeyeen noomadan codayn oo nuguyan taageeran islaaya oo fidman u horseeda waxaan u kala dooranaysaa saaq qabo wartarowkee waxaa wanaagsanaya akhriyaan ilaa wixii aad ugeedin baan shubaynay waxaa saa wanaagsan mid wala kala Soomaali waa ka badinay waxaan u kala dooratay keebaa talow wax furin kara dee dadku waa isqabtay war kanaa roon iyo kanaa roon baa lagu kala codeeyey mid buu codka u batay waa aniga dhammaantiin waxaan ka jawaabaya xisbi kasta ah oo wixii aad doonayseen ayma wadeeda qabanaya ee horumarka ahaa haddaan ka leexdo kii kulmiye ahaa iyo kii wadani ahaa iyo kii cudurka kalarka soo qaba warsaada hayladee waa kugu qabsoomaya markiina gudoomiyaha Cabdiraxmaan ee wadani laba goor u hadlay maalintii uu dhiibay baa ahayd wiilii waan ogolahay natiijadii wuxuu yiri oo midiyaha ka yiri uma tanaasulin ninka aan tartabaynay uma tanaasulin xisbiga loo tartabaynay qaranka loo tanaasulin waa iska oray haddii qaranka loo tanaasulin wax kama qabno waa guud laakiin bal haddii uu baar qaamuska siyaasadda oo haddaad qofkii kula tartamay aanu tanaasulin xisbiga aanu tanaasulin miyaa tanaasulshay qoladiina dhakhaatiirtu bar hadda mar akhriya diiwaanka siyaasadda oo annaga mar baanu asfarogay bowsanaayay bal arrintaana xalkeeda hala helo haddaa ayaa loo tanaasulay ilan dadkii bar buu ka reebay marka dadkii taageersanaa dee xisbigii kale iyo ninkii doortay waa la cod dee markaa bulshada qayb baa codadee waxbaa la hayaa dee in la sii wadaayaa waxaan sugaynay markay cadho dunto cadho waa la baryaaye ay ka soo wareegto in xisbiga wadani iyo gudoomiyuhu luqataa ka qabow dee yidhaahdaan ummadda u diraan daraad markii wax dhaceen anoo idinka ka baqaaya oo dadkii codeeyay ixtiraamaya oo kuwaanay codeyn ee aan maanta madaxooda ixtiraamaya anoo xaaladdeena guud oogaya ninkii ugu horreeyay telefoon diray markii dagaalkaasi dhacay uu soo gaaray Cabdiraxmaan Buuxa gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan u codeynayay xisbiyada dadku ayaa dee hogaaminaya qabeelada ka baxraan mashaakilka waa annagu xalila dadku daa anaga dhigistaan oo codeeyay runtii naga firiin idinka fiicin laakiin wana karaamaysan markaan ixtiraamnayda ahayd anoo taaka duulayaan la hadlo waxa soo dhacay goor waqti soo dhaqsan ku mashruuc baa jirtay aan wada baridaha fadhiin oo tagay goor ku qaaday wuxuu ka bilaabay walaalayaal doorashada waa hadlay la soo meeynaarin haabir dadka dhigsanay walaalayaal kulmiyana waa maahin waan aniga wala soo sheegay waxa saas u yiri cajaradii aad u doontay waan dhageystay waxaan leeyahay haddii qaamuska siyaasadda laga helo xisbi doorashada wala xisbi kala amaahiyay waa mid ugu cusub la soo sheegay waxaan saleeyahay haddaan kulmiyanahay xisbiga kulmiya iyo murashax kula tartamayay annagu ma qabna inaad maamulsho doorasho waxaanu qabnaa inuu tartamay si cadaalad leh inoogu qaybiyay tiradii la inoogu xubiyay aad ka dacwootay aad tiri meelaha qaarkood goobaha qaarkood iyo kursiga qaarkood ay baaro in la baaro way idin xalibneyd oo aanan ka hadal oo la hubiyay oo aynu 80 kun oo cod ku kala badnay baan qabaa oo feer iyo daacadahay waxa isweydiin leh haddii maanta 80 kun uu leeyahay waanu helo waalina amahiyo waalina booy Cabdiraxmaan uu xisbigiina uu hogaaminayo doorashada mar uu ku noqon doono oo talo tiro yar oo lagu burba hadduu keeno 80 iyo 70 maxuu yeeri doonaa ilaa rag baa ka tagay 80 iyo 70 waxaan leeyahay xisbiga kulmiye wadani halkii baan ku haynaa walaalnimo qadarin mucaaradad inta aynu wada leehayna aynu wada ilaashano inta isku khilaafsanahayna waan idin ogolahay dalishan ogolahay waxaan ogolahay marka hore nagu soo horeysaan inaanu talada qaranka dhaxaysa kala tashano haddaad u garawayaan dadka u sheegtaan haddaad qalad ugu haysaan inaad dadka u sheegtaan inaga waaymaysan binaadmo gafnaga waaymaysan waad ku in badan baa dhigay doontaa ku filan dawladda baan binaadmo oo qaladka wale mucaaradda waxaan u sameynay inay toosida ka xilkaaya uma inaan samaysan inaynu dee colaad dadka ku hayno iyo waxba maqan iyo afgashaan waxaan hortiina ka cadeynaya oo qaranka u sheegaya waxaan ogolahay ixtiraam waxaan ogolahay watashi waxaan ogolahay qadarin intee xisbi in talada dalka ee guud dhinacina ka joogtaan inaydaan qaladkeeda noo qarin
in ra'yigiina ayna naga fiicantihiin oo naga fiicnaada maamulka aad xisbigiina iyo programkiina iyo mikrofoonkiina ka wataan intaba diyaar baan u nahay laakiin dayeen aan hayn uu dadkii colaadiina kan waa la dhacay inanka dee codeeyey iyo inanta codeysay ee intaasoo dagaalo martay ee maalin cid u tagnay ilaahay waa lagu dhacay maalin waa lagu dhacay dee colaad ka bixi mayso marka waxa la taana aynu nabadda ku soo celino